رئيس الوزراء أبي أحمد ayaa saaka gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wadooyinka caasimadda gaar ahaan wadada xiriirisa garoonka Aadan Cadde ilaa xarunta Villa Soomaaliya ayaa laga joojiyay isticmaalka dadweynaha si loo sugo amniga ra'iisul wasaaraha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horey Itoobiya ugu tilmaamay cadow ka daran argagixisada, shacabkana u baaqay inaanan aaminin walaalnimada iyo derisnimada. ayaa Abiy Ahmed saaka ku soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde kadibna waxaa loo gilbiyay madaxtooyada qaranka. Abiy Ahmed wuxuu 12 bilood ugu dambeysay waxa uu ahaa qof laga neceb yahay Soomaalida dhexdeeda, maantase wuxuu dhex taagan yahay halkii bilo ka hor cadowga looga yaqaanay, wuxuuna garab taagan yahay ninkii iibinayay inuu yahay cadow arxan daran. waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud ka aaminsan yahay Itoobiya iyo meeshii ay dadka Soomaaliyeed ka taagan yihiin Itoobiyaanka farqi weyn ayaa u dhaxaysa. mar walba dadweynuhu badi hore uma aaminin, markii horeba fariimaha Xasan Sheekh ee dhinacyada Itoobiya ka sokow inuu yahay hogaamiye aan aad loogu kalsooneen. dadweynuhu waxa ay haysteen diiwaanka Xasan Sheekh iyo Itoobiya, kaasi oo madaxweynaadkiisa hore si weyn isugu dhiibay Itoobiya ilaa markii dambe kursigiisa uu ku waayay. Abiy Ahmed wuxuu muuqaal tagay isagoo aan ilaa hadda si rasmi ah uga laabanin heshiiskii afgaradka ay wada galeen Somaliland. sidoo kale wuxuu maanta muuqaal tagay Abiy Ahmed isagoo dowladda federaalka Soomaaliya ka helay ogolaansho uu ku soo gaari karo biyaha Soomaaliya. labadii warqood ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Bixi ay u saxiixeen ayaa jeebka ugu jiray Abiy Ahmed isagoo aan waxba ugu bedelanin labada dhinac. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dabacsanaan u muujinay Itoobiya si uu ugu adkaado qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya, laakiin ilaa hadda wax badan uma shaqeynin. kadib heshiiskii Ankara ee Soomaaliya iyo Itoobiya, 12 ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay dowladda Itoobiya ciidankeeda ku dileen degmada Doolow ee gobolka Gedo, welina xitaa raaligelin kama bixinin. inta ay taagnayd xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya, wuxuu Abiy Ahmed aad isaga ilaaliyay fariimo dagaal, kuwa kicin ah iyo aflagaado, wuxuuna aad isugu dayay inuu ku abaal sheegto Soomaalida. taasi beddelkeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariimo diblomaasiyadda ka baxsan u adeegsaday Itoobiya, isagoo ka hadlay dhowr goobood uu ku jiro masjidka madaxtooyada. hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu curinayaa ficilo uu ku dhaqayo hadalladii uu u adeegsaday dowladda Itoobiya iyo ra'iisul wasaare Abiy, laakiin taasi wax badan kama bedeli doonto aragtida ay shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan Itoobiya. haddaba sidee u aragtaa adiga?